السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارتي سو dhawaada waa marka barnaamijkeenan caawa insha Allah taala waxaan ku qaada dhigi doonaa digreeto ka soo baxday maamulka madaxweyne Donald Trump oo loo qaybiyay safaaradaha dalkan Mareykanka uu ku leeyahay dalka dibadiisa taas oo lagu sheegay in dadka qaba cudurrada barkood aan la soo siinin visa ay ku yimaadaan ama dalku gal ay ku yimaadaan dalka Mareykanka waxaa la soo rogay in caafimaadka dadkaas si gooni ah ay u fiiriyaan immigration officerska awoodda u leh inay bixiyaan viisaha iyagu waxa cudurradaas kamid ah baa la yiri cudurka aadka commonka oo la wada yaqaano oo dadka sida baaritaan la sameeyay lagu ogaaday 10% in dadka adduunka ku nool populationka ay qabaan ee ah sokorta ama kaadi macaanka lagu daray cudurrada loogu diidayo qofka in uu soo qaato visa dalkan Mareykanka uu ku yimaado si uu ugu noolaado waxa kale oo ay ku dareen bay yiraahdeen cudurka obesity-ga dadka cayilka saa'idka qaba aadka u buuran buurnida marka ay noqotay cudur Mareykanka ayaan ku aragnay qofka marka obesity-ga qaba ama cayilka saa'idka ah iyo qofka sokorta qaba ayaa ku jira warqadda ay u direen maamulka Donald Trump in aysan soo gali karin dadka noocaas ah sidaas la mid ah waxa ay sheegeen dadka da'da saa'idka ah u weyn oo waayeelada ah iyo ay sheegeen in dadkaas markii ay soo galaan shaqo caadi ah inaysan haysan karin oo ay dalka ka shaqaysan karin oo ay ku tiirsanaan doonaan bay yiraahdeen kaarka cuntada iyo kaarka caafimaadka iyo lacagta laga jaro dadka Amerikaanka ah ee taxpayer money-ga ah dadkan ayaa waxay ku sheegeen inay noqon doonaan dad ku dul noolayaal ah haddii waayeelo saa'ida ay yihiin haddii cudurro ay qabaan oo sokorta oo kale ah haddii cayil saa'ida ay qabaan waxa ay u imaanayaan bay yiraahdeen inay systemka Mareykanka ay ku dul noolaadaan oo ay ku noqdaan culaab hor leh oo ku soo korodha marka dadka noocaas ah visa inaan la soo siinin ba ay soo qoreen oo maanta warqadda gaartay dadkaas already waxa la dhahay dadka badankood waa la baaraa oo caafimaadka waa la fiiriyaa waxa la fiiriyaa baa la yiri marka dadka inaysan qabin cudurrada faafa sida maaragtay TB-da oo kale waxa kale oo la raadiyaa dadka talaalkooda historyga talaalkooda liiska medical conditionska ay qabaan dadkaas waa la fiiriyaa marka muranka waxa keenay oo ka hadlay dadka u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah kuwaas oo sheegay ama ku andacooday in caafimaadka already dadka la mariyo sharcigana uusan dhigaynin oo uu jiro sharci ka soo horjeedo in dadka viisaha ama dalku galka loogu diido wax maamulka ama dawladda markaa jirto ay ku sheegtay lacalla oo kale lacalla waxa laga yaabaa inuu ku dul noolaado kaarka caafimaadka iyo kaarka cuntada iyo guri in la siiyo adiga lacagta taxpayer-ka oo canshuurta bixiyaalka laga qaado inuu ku dul noolaado marka lacalla qof looguma diidi karo sharci baana ka yaala bay yiraahdeen inkasta oo sida ay sheegeen maamulkan ay leeyihiin dadka da'da ah dadka sokorta qaba dadka cayilka saa'idka qaba iyo dadka ay u maleynayaan in ay dul degi doonaan dalka Mareykanka iyo nidaamkiisa iyo ceyrta dadka qaata adiga inay noqon doonaan in loo diido sharcigaas ay soo saareen ayaga oo aan wax maaragtay tixgelin siinaynin sharciga kale oo dhahayo lacalla qof looguma soo diidi karo marka already sida la sheegay qofka qaba baa la yiri sokorta waxa kale oo ku jira cudurka ugu dilka badan oo dadka kala reebayba dhanka wadnaha cardiovascular diseases baa la yiraahdaa ama cudurrada wadnaha ku dhaca cudurrada sanbabada iyo ku dhaca respiratory diseases dadka kansarka qaba dadka sokorta qaba dadka qaba bay yiraahdeen cudurka xagga dhimirka maskaxda lagaga jiro dadkan oo dhan waxay yiraahdeen waxa ay u baahan doonaan $10,000 in ay nagaga baxdo oo aan take garayno annaga oo thousands of dollars worth of care bay u baahan yihiin care fara badan oo lacag ciidaha ka fara badan ay ku baxayso waxayse aysan ogeyn baa la yiri in 10% adduunka dadka ku nool ay sokorta qabaan sidaas la mid ah waxa aad common u ah oo dad fara badan ay qabaan cudurka wadnaha ku dhaca marka arrinkan isaga ah waxa la fiirin doonaa sida maaragtay u suurta gasho laakiin so far hadeer officerada viisaha bixiyo visa officers
waxaa amar lagu siiyey inay go'aan ka gaaraan dadka cudurrada qaba in aysan siinin visa. Sidaas si lamid ah waxa ay ku doodayaan qolyaha u dooda dadka soo galootiga ah in dadkan viisaha bixiya aan si caafimaad ahaan loo tababarin oo dhaqaatiir iyagu aysan ahayn, inay go'aan ka gaaraanna qofka caafimaadkiisa iyo wixiisa ay qalad tahay bay ku soo celcelinayeen. Marka arrinkan isaga ah ayaa soo kordhay. Dad badan waa la arki doonaa oo loo diiday sharciga ama dalkugalka Maraykanka iyada oo loo adeegsanayo oo ay ka tixraacayaan arrimo caafimaad awgood. Marka arrinkan ayaa waxa uu kaliya uu daba socdaa baa la yidhi arrinkii baryahanba dalka Maraykanka ka socday tarxiilka dadka soo galootiga ah iyo ka hor istaaga in ay dadka kale si loogu sameeyo baa la yidhi niyad jabin ama discouragement in ay kusoo dhiiradaan inay dalka Maraykanka soo aadaan. Dadka ayaa waxaa la rabaa in kuwii inta joogay oo sharci darrada ahaana intii la qabto la tarxiilo, kuwa kale oo soo socdayna loo quusgooyo oo loo sameeyo siyaabo loogu diido dalka Maraykanka inay ku soo gaaraan. Marka arrinkan ayaa cusub. Raadiyaha ama idaacadda NPR ayaa iyadu ku taagtaagsato si fiican articlekan u qortay. Arrinkan ayaan rabay insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.